بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي وعلى السلام markastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan. waa Ayuush Cabdiqaadir youtube channelka aad daawanaysid waa Ayuush Cooking Bureau. waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtaan ana sidoo kale. marka hore waxaad leeyahay soo dhawaada. maanta waxayna wadaa muuqaal kale. saa u jeedaan mooska wuu dilaacsan yahay. biseel ziyaado maahan laakiin dilaaca soo galay saas darteeda marka inaan xaliyaa rabaa oo xal ah u sameeyo maadaama oo waqti kulaalana yahay. mooskana isla marka uu bislaanayo saawad ognahay mooska dad qaarna kaligiisa way cuni karaan dad qaarna cuntada un bay ku cuni karaan marka intaan dhan ma la wada cuni karo mahano saas darteeda marka intuu banaanka iga halaabi lahaa waxaan sameynayaa xala u sameynayaa insha Allah waan ila arki doontiin inaa ka heshiina waan rajeynayaa. mooska intaa u baahanayaa soo fiiqaa kadibna waa soo jarjarayaa. maanta waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka kumentiyada ku dagaalamo markii laba qof isdagaasho ee qofkan markay soo fariisato dhibkeeda ay ka hadasho qofkii kale asoona soo hadlin isla markii la kacaala sameena qofkii la safana kii kale la ceena jafta laga gidina dadka noocaas u dhaqmo biliis iska dhaafa. labadan qof ayaga isdagaala ayaga iska kii ogaa ayaga isxaal ogaa qof kasta qofka kale uu dhibaatay dabcan qof oo malaa'ika meesha ma joogto labada qof bili aadan ay ahaayeen dabcan qofkan haduu hadal xun dhahay midkan hadal kale ka sii xun uu leeyahay saawada ognaabo. marka idinka oo labada qof u kala heelinaa kii kale hadana soo fariisana hadana dhinaciisa hadana la aada hadana waa la safana oo kan waa laga qaldanaa kaasa qaldanaa hadana dadka dan way heshiinayaan hadana markay heshiiyaan kadib adin marka maxaa ku yaalo labada qof oo shal isdagaashay ayaga iska kaadhow ayaga isdagaale ayaga hadana heshiiye adin marka maxaa ku yaala ii sheeg. marka waxaas iska dhaaf asxaabe dadka kumentiyada ku dagaalama shiiga dadka maxay ahayd aan kumentiyada ku dagaalamin ma ahan hadalkayga waxa ula jeedaa dadka kumentiyada qaldan qoro oo mar walba yacni isla markii seefta la baxaayo dadkaas la hadlaaya. mida kale gabar baraha bulshada heesta intaan oo ciyaalka laga qaatay horta marka waxaan ku leeyahay baa Ilaahay ku caafiyo marka xigtana ciyaalkaada adigoo nabad qabo iyo ayagoo nabad qabo Ilaahay ha isku keeno insha Allah. waxaan fariin ugu dirayaa markaan dadka ayada kumentiyada u soo qoro walaalayaal oo ayada gabadhan xanuunsan barbaleen ku furan yahay horta sabab maxay ahayd isheek aan fiidiyodeeda waa la socdaa mar walba waa arkaa oo maama adaga aan dhigi karaa masha Allah tabarakallah ayadoo 3 cunug laga qaatay cunug dhashay laga gubay oo saqiir aakhir Allah kaaga dhigo hadana ay gubeen yacni dhibaatooyin badan ay soo gaartay hadana waxa sameynaysiin kumentiyo qaldana u soo qoraysiin war hooyo kasto way fiican tahay dhigi karaan hooyo xun ma jirto mid xun xitaa ciyaalkeeda waa jeceshahay maba aaminsani ani hooyo xun ay jirto hadii jirtana ciyaalkeeda ma necba qof ciyaalkiisa necab ma jiro adigoo qori kara comment fiican oo waliba niyada u dhisaayo ha u qorin wax niyada ayada ka sii jibinayo ama lagu daleecinayo insha Allah. inta maamo oo laga haysto ciyaalkan waxaan leeyahay Ilaahay ha idin soo celiyo idinkoo nabad qaba iyo ciyaalkiina nabad qaba Ilaahay ha isku keena idin leeyahay. meel walba adduunka daafiisa ay ka joogtaan xafsi keli maahan dad badan aa jiro dad la aamusan ee dad maxay ahayd social media ku jiraba maama Faadumo waa kaasa wallahi waxaan dhihi karaa maama adag waa ayada laftirkeeda masha Allah tabarakallah Ilaahay ha u siyaadiyo Ilaahay gawi ha ka sii dhigo insha Allah biidnillah yawm min al-ayam ciyaalkiina gacantiina Ilaahay ha ku soo celiyo aad leeyahay. haddii aad ka mid ahayd dadka kumentiyada qaldan qori jiray meesha ku jooji isla meesha aad ku soo qori jirtay kumentiyada qaldan isla meeshaas uu ku soo qor qofka walaalkaada adigoo cafis ku weydiisanayo insha Allah dad ka soo gudbo saa u jeedaan mooska intaa u baahna waa soo jarjaray waa soo dhameeyay si uu iiga madowaanin darteeda hal xabo libnaana hadda ku miraya saa wada ognahay mooska hadii daqiiqad yar uu yaalo isla markii hore ku madoobaanaya saas darteeda marka hal xabo libnaan aan ku miraya kadibna insha Allah fareesarka gelinayna waqti kasta u baahanahayna xogaa yar ka soo baxsanay casiirka ka dhigan lahayd waxa ku darsan lahayd oo casiir ahaanta ugu dalgashay ku darsanay oo isku dhamaatay
maasha Allah tabaarakallah waana ka heli doontaan insha Allah soo tijaabiya bedelku mooska banaanka kaaga halaabi lahaana wuuna ku xafidmaya isla markaasina wax talaajadaada kuugu jiro oo ku diyaar ah waaye haddana liinta gaarsiinaya si fiican qaando ma gelinayo laakiin waa iska gaarsiin doonaa insha Allah casiirkiisa muuqaalka xiga adiga kaga soo dhigi doonaa hadduu Ilaahay idmo sidaas aa ujeedada isku gaarsiinay liinta iyo mooska waxaan ka bixinaa wax dheer moos ku jiro marka hore waxaan ku meeraa hal jab haddana jab kale haddana ku meeraya sidoo kale haddana wax qaando ma u dhaweynayo waa iska gaarsiinaya sidaadoo kale kulli ma mooskaaga u badan yahayna liintaada siyaadi ana intaan hadartaan hal xabo liin ku filan haddii mooskaaga intaan uu ka sii badan yahayna laba xabo ka dhigo hadduu intaan ka yar yahayna gab ay kugu aadaa waayo lagama rabo wax dhadhan ah bas waxaan ka rabaa oo kaliya in uu iga madoobaan mooska saa hore kuugu sheegabo wax walbo ani faa'iido aan u arko ama aan soo jeclaysto ama aan ka soo helo waa idin la soo wadaagi doonaa hadduu Ilaahay idmo si ay idinkana ay ila aragtiin saa hore kuugu sheegabo wax walbo xal aan u arko ama ila fiicnaado waa idin la soo share garan doonaa hadduu Ilaahay idmo aan isleeyahay qofka kale walaalkaada uu ka faa'iidi karaa insha Allah waa idin la soo share garan doonaa saan aa ujeedina ku soo sameeyay mooski waa soo jarjaro kaliya wax kalena kuma darin aan liin ahayn si ay iyaga difaacdo madoowaadka mooska saan hadda faraas gulinaya kadib waqti alla waqtiga u baahan tahay aa ka soo baxsanay xogaa yar ka soo qaadanay haddaad rabin inuu isku dhigdhigo ama isla markaas aan mustacjal tahay isla markiiba shiida aas leedahay waxaa sameyn kartaa waxaa u kala xiri kartaa xogaa haddii mooskaada uu intaan ka tira badan yahay waaye haddii intaan 2 mar ama 3 mar camal la shiidan karaa haddii intaan uu ka tira badan yahay bacay waxaa jirto oo faraasirka kale la geliyo wax kasto aa rabtid inaad faraasirka gashto bacayaha soo gado inta aas leedahay hal mar la shiidi karaa ha ku shubee kadibna faraasirka gashanay laakiin ani hadda saas uma sii badno mooskiga waa wax yar haddii aad soo gaarto muuqaalka dhamaadkiisa waa kaaga mahadcelinaya aad iyo aad u mahadsantahay ku leeyahay markii ugu horeysa channelka soo booqatay haddii ay tahay subscribe ka saaro gambarelka furo si uu kusoo gaaro muuqaal walba aan soo geliyo video haddii aad ka heshay like saar fikirkaadana commentiga oo sii wadaag sidaan ku soo baxay aa ujeedaan marka faraasirka ka soo bixiyay 5 saacadood uu ku jiray waa walaashina ayuu soo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh